الحمد لله رب العالمين ونستعين على أمر الدنيا والدين. قدوميها قبل قلمدق مدن إسحل قدوميها قبل كمدق بنتلان مدن عبد اللطيف موسى وضياش رقنك قبل كمدق إذا ماذا حسلمت نبض قبل كمدق ورد هوينك بتاعنا يبلي بوسلة معاملة ديجاننا بتاعنا بلي بوسلة يقعنا فرن سليها عيدا كدراويش قبل كمدق من بنتلان علماء الدين أما وحق السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان تعسيو درينا إنه وسكدوبا إنت يداس دادكي كل إنتي تضبيط طوانكي بشان مارسو goobtan hadda aynu joogno aagan xoolo daaqsinta oo runtii aan oran karno waxay u dhinteen aqli xumo dadkaas waxa weeye xoolo dhaqatada ah ka dhaxaysa munaasib ma aha in maanta iyadoo 2021 la joogo in dad ay nooga dhintaan si aan ka fiirsi lahayn oo wax la xallin karo ama wax aan mataqaanaa raad lahayn ay dad u dhintaan waa ka xunnahay taasi aan u direynaa eheladii marxuumiinta saddexda ah oo ku geeriyooday meeshaan hadda aynu joogno waxaan rajaynaynaa ciddii ugu dambeysay aqal xumo nooga dhimatay inay noqoto in dawaale waxaa lagu soo wada noolaa nabad baa lagu soo wada joogay xoolaha la kala ceshan jiray daaqsinta la wadaagi jiray gobolka nabad caaba ka dhacday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhacdadaasi inay intaa ku ekaato aysan wax saameyn yeelan shirkan la isugu yimid maanta ay tahay bisha 19 geedkan hadda aynu joogno meegaaga hoostiisa higliga hoostiisa oo waxa weeye ku yaala dooxadaas gobolka mudug u dhaxaysa labadaas wadaagsin waxaan rajaynaynaa in wixii ka soo baxay halkaan aynu ku soo sheegi doono in sidiisa loo fuliyo qodobka ugu hore dad badan baa hadlay odayaal baa hadlay culumaa hadashay gabdhihii baa hadlay waxaa xusid mudan in shirkaanu yahay shirkii nabadeed oo gabdhaha deegaankan ku nool oo waxa weeye dadka halkaan degan oo xoolo dhaqatada ah oo bitaale iyo balibusle ay ka soo qayb galaan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shirarkii hore ka bedelan oo nabad saldhig iyo hididiilo hor la geliya waxaanu arki jirnay gabdhuhu inay waxa ragga guwaabiyaan colaada kuba guwaabiyaan maanta iyagoo gacmaha haysta ay waxay diyaar u yihiin inay nabadda doorkoodii qaataan oo iyagoo gowshoodii soo qaatay raba inay meeshaan oo aan harsi iyo cunto iyo hooyaad midna lahayn inay muddo joogaan si loo xalliyo arrintan waxaa la isla gartay oo dadkii hadlay hadalkoodii gunaanadkiisu noqday in la xoojiyo nabad ku wada noolaashihii deegaankan ka hirgashay iyadoo maamul odayaal ciidan ka xasilinta iyo ciidamada daraawiishta labada dhinac culimaa diinka gabdhaha in nabadaas ka hirgashay halkaas meesheedii laga sii wado dhacdadii dhacdayna aysan wax saameyn ku yeelan daaqsinkii sidii loo wadaago ceelashii sidii loo wadaago baadidii sidii loo kala socdo qodobkaas waa qodobka ugu horeeya ee hoosta laga xaqiiqay qodobka labaad waxa weeye in la garab istaago ciidanka xasilinta oo taliya Saacid Bidaar iyo taliya Cali Naasir ay taliya ku-xigeenka yihiin in la xoojiyo dadaalada ay ka wadeen wixii tasiilaad ah maamulada labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug uga xiran iyo odayaashana in la fududeeyo arrintaasna waxay noqotay arrin la isla qaatay
ciidankaasna waxaa la rabaa in hawshii ay xasilinta ay hayeen oo in meesheeda ka sii wadaan ilaa idankiis inta shirkan lagu baaqay ama lagu heshiiyay in gaalkacyo lagu soo xalinayo dhacdadii ka dhacday ee aagan hadda aan joognana inay sidaa u sii dhex joogaan dadkaas waxa xoolo dhaqatada ah oo wiilka aan qaangaarka ahayn oo qoriga haysta ay ku sii dhex jiraan inta odayaasha iyo maamuladu ay xal waara ka soo gaarayaan dhacdadii dhacday ciidankaas sidaas la rabaa maamulada labada dhinacna ahna iyaga gudoomiyaashooda afkood ka hadli doonee wixii tasiilaad ciidankaas u baahan yahay in la garab istaago dadka deegaankana waxaan ku codsanaynaa in waa rag way meeshay joogaan in wixii fududayntooda iyo la shaqayntooda iyo u nuglaanshahooda go'aamadooda in iyagana waxa weeye lagu garab siiyo qodobka saddexaad waxa weeye xalka dhacdadii dhacday 17kii bishan Maarso oo ka dhacday deegaanka kan oo ay ku dhinteen saddexda marxuum oo walaalaheen ah xalinteeda in loogu ballamay gaalkacyo maalinta isniinta ah oo ay taariikhduna tahay 22 bisha Maarso gobashaas nabadda ah oo taala madaxtooyada gaalkacyo ee Puntland ee gudoomiyaha gobolka Mudug ayaana gobasha dhigay odayaasha labada dhinacna waxaan rabnaa ka soo qayb galaan iyo maamuladuba iyadana halka in lagu xalliyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinaynaa anoo ku hadlaya afkii ka soo qaybgalayaasha shirkan dadkii nabadan maanta aynu geedkan u harsanayno waxoogaa yarka dhacdadaas soo dhex gashay soo waday inay sidoodii u sii wadaan ilaahayna miisaankooda xasanaadka ugu daro hashii dhinacaan gashayna rag baa ka shaqaynayeen ognahay xoolahooda iyo waqtigooda iyo naftooda ku bixinayay midda xagga aadayna sidoo kale xilli adag baa lagu jiraa oo jiilaal ah wixii xoolo labada dhinacba jira raggii ka shaqayn jiray kala wareejinta inay kala wareejiyaan oo dadajiyaan ayaan codsanaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo dhawaynayaa laba oday oo labada deegaan oo waxa weeye Puntland iyo Galmudug ku hadlaya afkooda inay hadlaan go'aamada shir ka soo baxayna taakiidaan labada gudoomiye gobolna ay noo soo xilaan waxaan soo dhawaynay nabadda halka la isku yimid soo dhawaynay waxaanu ka murugaysanahay wiilasheediyar oo isku dhibanaya siyaasada aan macnaha lahayn inay maanta ka bacdi looga dhiban wixii waxaanu ka murugaysanahay 36 sano wixii soo socday maanta in laga qoomeeyo baanu ka murugaysanahay waxaan leenahay ilaahay nooma celiyo meeshaas maanta aan joogno allah ku dabar jaraan leenahay mid horta waa midaas walaalayaal soo dhawaada nabad ku soo dhawaada wiilashiini iyo gabdhihiini iyo seediyaalkiin iyo awoowayaalkiin ku soo dhawaada maanta nabad bay inii fidinayaan adigana waxaynu ka rajaynaynaa sidaas oo kale inaan nabadaas oo kale adigu dhinacina loo fidisaan oo isku darano sidii aan ahaan jiray aqal lagu furo saasaan horta anagu raadinaynaa saasaan rabnaa sidaasaan doonaynaa in loo wada ahaado saan ceelka wada cabaynay saacana wada qalanay saan neefka qalanaynay saacana wada cabaynay saan isku siinaynay hasha Soomaal maartay maalka si la isku siinahay diintoodii sabariya iimaan Allah siiyo wixii diinta islaamka aynu ogoshahay inaan u ducaynaa ilaahay u dambi dhaafaan inta ka bacdi waxaan oranayaa saraakiisha ciidanka xasilintoo jooga iyo maamulka gobolka Mudug labadiisa dhinac waxaan leeyahay waxa laga qabto maamul ahaan odayaasha hal tuso ama ha sameeyeen shirka hadda la isugu imaanaya inay qoraal oo la siiyo ciidamada inay wax ka qabtaan cid kasta oo nabadda wax u dhimaysa meesha saasaan ka codsanayaa maamulka gobolka iyo degmooyinka inta kaleeto dadka waxaan leenahay aan ilaah ka baqno ilaahayaan ka baqno inkastoo codkaygu gaarayo oo dhagaysanaysa waxaan ugu baaqaynaa nabad baan ugu baaqaynaa qofku hadduu shar ka shaqeeyana uu helaya waa loo ballanqaaday inuu sharka abaalkiisa hadduu nabad ka shaqaynayana waa loo ballanqaaday inuu helayo anigu waxaan oranayaa marka dhinacan xagga iyo labada dhinacba kalama soo cimeeye waxaa lagu heshiiyey maanta inaan xabad damba dhicin dhammaan gudoomiyaha gobolka Cabdiladiif Maayer Maxamuud
odayaasha saraakiisha ururka haweenka labada dhinac saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamsan assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh inta kadib ujeedada iyo danta aan leenahay ee maanta halkaan aan u nimid oo shalay aan u nimid haddaanu maamulnahay oo aanu ka shaqaynayna waxa weeye in dadkan mas'uuliyadooda ilaahay na saaray ay nabad ku wada noolaadaan annaga ka maamul ahaan way naga go'an tahay labayada dhinacna laba dhinac ma nihin markaan gaalka ay joogno waxaan nahnaa haddii aan maqanahay cabdiladiif way mateli karaa haddii uu maayarka kale maqan yahay maayar maxamed waa mateli karaa shalay anigu waxaan soo tegay inaan say mateli karo oo aan shalay ku lahaano laba maamul afkeeda ku hadlay ku hay annaga waxaa naga go'an khiyaaray culumo hooyooyinow inaannu nabadda aan xoogga saarno gobolka mudug horumar ma gaarayno horumarna ma samayn karo ee gudoomiye cabdiladiif gudoomiye maayar maxamuud ma samayn karo maayar cabdiraxmaan ma samayn karo anu ma samayn karo daan nabad leeyahay waa inaan nabad leenahay sida biyaha bini aadamka ugu baahan yahay ilaahay wajacalnaa min almaa'i kulli shay hayyun afalaa yu'minuun baan bini aadamkeegana horumarkiisu wuxuu ku xiran yahay nabadda haddaan nabadan inaan nagala shaqaysiin baan rabnaa haddaad urur haween tihiin haddaad culummo tihiin haddaad dhalitiin annaguna waxaan nahay garabkiina midigii garabkiina way naga go'an tahay waxaan runtii aad uga mahadcelinayaa odayaashii ilaa shalay ilaa maantii dhacdo dhacday ku jiray meeshaan ee aan ka wada shaqaynaynana ayaan waxaan ajar xasan allah ka siiyo ujeeddadana waxaan rabnaa odayaashana ka codsanaynaa oo aan maqashiinaynaa cid kastoo codkay u gaaro inay saxiixaan laga bilaabo maanta wiilkii khalad gala in la soo qabto la toogto in la soo qabto la xiro hadduu xarig leeyahay hadduu toogasho leeyahay toogo ciidankana loo fasaxo oo ciidanka xasiinta fasaxdiin annaga ka maamulaan go'aankaas waa gaari karnaa laakiin waxaan rabnaa inay nala qaataan odayaasha dhaqanka ee labada deegaan xukuma waayo maanta mas-uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay waa odayaasha waa qadiid waa gaani waa jagaxiir waa sheekh ibraahim ragga noocaasay saaran tahay hadday warqaddaa saxiixaan annaguna gohel baan siinaynaa wiil damba dhiman maayo geel damba la kala dhacay arki maysiin laakiin gadaala ka fadhiisanina annaga codsi taasaan unahay cabdiladiif wallahi wax ma qaban karo annagana qaban karin haddii inan ogolaan wiilka in la xiro in la dilo hadduu khaladaan la ogolaan ma waxa maleyn karin runtii waa raalliga aad oo ku dheeraaday waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkii cabdiladiif oo ila mid ah oo fikirka aan qabo iyo mid ka sii badan ma qaba nabadaas iyo gobolka u gaari lahaa ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii goobtan u yimid inay islaaxa u yimaadaan ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa miisaanka xasanaadka inuu ilaahay u saaro ay ka shaqeeyaan waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa gabdhaha qiimaha badan oo bitaale iyo ka kala yimid iyo bale musle oo nabadda u yimid iyagana si gaar ugu mahadcelinayaa qodobadii aynu ku heshiinay nuxurkoodii waxaa jeediyey hadalkay meesha ka soo baxay nuxurkiisii maayar maxamuud cabdinuur aadan oo runtii si fiican u khulaaseeyey gobashiina isagaa jeediyo waa ku ballannay in isniinta aynu isugu nimaadno gaalkacyo puntland madaxtooyada gaalkacyood ee puntland hadalka nuxurkiisii labada nabadoon baa jeediyey runtii markii hore iyo markii dambaba axmed sheegaxiir iyo gaani raalli ahaada haddaan inaas raaciyo waa iska tacriif anigaba sanyaraa la yidhaahdaayo lama dhunto marka labada oday baa jeediyey runtii waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa ciidanka isku dhafka oo nabadgelyada gobolkan dhagax dhigana u ahaa maantana kan qabtay horey baan u sheegtay waxba la iga sheegto iskuulad baa jiray ajandahay noogu jiraysaa ciidankaasi in la baawargareeyo oo dhaqaale gaara loo sameeyo kay hadda helaan mid ka gadisan ah dad lagu daro mandate loo sameeyo ay leeyihiin waxay qabanayaan aan qorno ajandahan ku darsanaynaa kulanka yaga isniinta haddii alla idmo annaga reer puntland ka hor baan sii wada fariisanayna sabtida inaanu isu nimaadno oo aanu ka wada hadalno sidii aanu maaragtay hawshan ajandaha u degsan la idinkana sidoo kale dabcan